naarta wax naar la mida oo uu seexdo ka cararaya yani nin naar og in la gelayo oo haddana hurdada iska laxaadsado iska macaansanayo oo hurda ka dharag u jiifa wax naar la mida maan arag buu nabigu leeyahy walaa mithla aljannati naama taalibuhaa buu nabigu leeyahy iyo wax janno la midoo mid hunguraynaya uu haddana seexdo yani haddaad wax weyn raadcinayso waxay keensanaysaa maxay inaad xoog badan iyo caqli badan iyo awood badan ku bixiso idan janno laleeyahay carduha asamaawaat walard cirkan iyo dhulkan iyo waxaan oo dhan inay ka weyn tahay lagu tilmaamayo dadka ka u janno yari dunidan toban laabkeed inuu leeyahay jannada intaa leeg adigoo raadinaya haddana inaad qiimo yar ku raadiso waxaan qiimo ahayn oo iska seexatid oo jiifjiifsatid waa wax qaldan adigoo balaayada dhacda balaayada ugu weyn raba inaad ka baxsato naar raba inaad ka baxsato waa balaayo la arka tii ugu weynayd meel intaad gasho aad ku waarayso abidka aad gubanayso kolba aad dhuxuloobayso dib lagu noolaynayo laa yamuutu fiiha walaa yaxya aad ku jirayso adigoo meeshaa og baxsashadeeda haddana inaad iska seexato aanad wax badan dareemin iyana waa wax cajiiba saa daraaddeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qof naar ka cararaya jannana hunguri ka hayo hurda uma eka yacni hurda uma eka macnaheedu waxa weeyaan in uu juhdi yar bixiyaa qofkaa uma cuntamo wuxuu u baahan yahay inuu juhdi weyn bixiyo tii maanta lagu odhan lahaa shaqa lagu dirayaa shaqada abaalmarkeedu waxa weeyaan magaalada inaad degantiin baad keligaa yeelanaysaa ka war shaqada magaaladan aad keligeed ku helayso intaad ogasha inaad dhib mudato ilaan hall city astrodsato oo wax kasta aqbashid shaqada waxa laga yaabaa haddii lagu yidhaahdo 20 years consecutive aa la wadaya inaad tidhaahdo ana laha waa tijaabinaya mar haddaan magaalada intaan lee helayo ka waran haddaad janno raadcaynayso ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نبي محمد عليه الصلاة والسلام كنت المامي وحان إذا ألق أردقي مقل وقلبي بني آدم كسور دعين ويني يقرح وحيلا ضحي هدي تاهم قريو جهدي قال لقبها هي وينتي هدي سيب بلد وين أتقبح حسن سو جهدي قال لقبها هي وينتي الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يا وحيد هذا العامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسن والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يطلب عامة ضدك وحيد هذا مبويري ان قف كستا قيمه سوا وحو وناجيه يعني شيء وقرنا يا وناجنتيسا اي قيمه سوا وحا كشقيه لكن ضدك خاصة الهي فهمي وحيد هذا قيمة كل امرئ ما يطلب qof kasta qiimihiisu waa waxa uu hungureenayo waxa uu talbayo hadaad wax yar talbayso dadmiinaysadna waad hami gaabantay wax yar baatay hadaad wax weyn dalbaysana wax weyn baa tahay buu tilmaamaya hadii hadafkaagu uu koreeyo marka caqabaadka ka sokeeya wax fudud bay kula noqonayaan يعني نفي نفيس بينات بحسو شيء كستو قالي إن هذا قش وين ده دو قيمة واحد كيف سنة قيمة حوجا النقطة دي لكن شيء هدو تافه هي شيء شبان هدو يهي ما أقول لي أنا دو حبلا كوب بحسه واحد ربط عندنا 3 بيستين أنا تكو قاضته قيمة يرنا تكو قاضته بدونيسة صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وتربية هدف وين بين الله شكل هاي وحكستو هدف كاس قوية ويقبل يرينكم بحيان قصة واحدة أنا دينت المامية إمام البخاري يغير كيف سوى أرورينيان نبي عليه الصلاة والسلام قلا أتمي واحد هذا وحن ربنا إن الدين تبارنه عدنا قدر نبي عليه الصلاة والسلام نمن قراء لورنشري أيو قدري تضباطنن نمن كان قراء دي وحي هانشرين نمن هبين كي سو جيده وقرآن كأخريو إصبره
maalintiina masaajidka biyaha u soo dhaamiya iyaguna intay xaabo meelaha ka soo gurtaan gato oo ku nool niman cibaado u go'ay ayay ahaayeen nolosha ka ogol waxoogaa xaabaa intuu soo guro inuu luqmada ceeshka siisto muslimiinta masaajidkoodana inuu caawiyo biyaha u keeno isaguna inuu cibaadaysto u go'ay bay ahaayeen kooxdaa 70 nin oo ka miduu nebigu ku daray calayhi salaatu wasalaam inay qoladaa diinta soo baraan qolada tani may rabinba in diin la soo baray waxay rabeen inay nebi maxamed khiyaameeyaan oo dadka laayaan dabeetana meel dhexe markii la marayay ayaa mu'aamarada loo dhisay waraaqda ninkii siday markuu isiri dhiib ayaa xagga dambe mid waran ka geliyay koodii koowaad nimankii kalena waa la laayay 2 nin baa ka baxsadaa la yidhaahdaa ilaahay bay baryeen ilaahu arrinkayaga nabigii gaadhsii calayhi salaatu wasalaam nabigu u yimi oo maalma ducaynayo habaarayay qoladii maxaan uga jeedaa waxaa ka mid ahaa حرام بن ملحان أنس بن مالك ابتقي حرام بن ملحان مركي مديدة لقليي ورن بان لقليي سوف فردي ورن بوغا استو والليباني الله كل دارتي بولي ربك كعبدا كل دارتي والليباني مسألة قيمة نكن وحوايي نرشي والدلي waliba khiyaamaa lagu dilay nagar baa loo sameeyey isagoo sii jeeda inta la khiyaameeyey waran la geliyey dabeetana ay ka koogtay ninkaa waranku galay isagoo sii jeeda dhimanaya ayaa wuxuu ku dhawaaqayaa haddana fuztu warabbi lkacba rabbiga kacbadan ku dhaartee waan guulaystay waayo wuxuu arkayaa hadafkiisii inuu xaqiijiyey inuu janno galo ilaahay raali geliyo mar haddaan ilaahay tiisii ku dhintay anigoo wada waan guulaystay buu leeyahy guushaasi wuxuu ku waayay halkan marka la joogo guusha thamanuha alxayaa wuxuu ku gatay waa noloshiisa dhammaanteed maca daalika wuxuu arkaa inuu guulaystay taa macnaheedu waxa weeyaan hadafku hadduu koreeyo saami yahay qofku wuxuu ogolaya wax kasta inuu ku bixiyo wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam inooga warramayay wiil yar oo dhallinyaro ah oo hadafkiisa naftiisa u bixiyey qulaamkii sixroolaha loo geeyey la yidhi waxa la baro ee wadaadkana sii mari jiray raahibka ah ee dhanna sixirka ka soo baran jiray dhanna ninka wadaadkii waxoogaaga diinta u akhriyi jiray markii dambe tawxiidkii ee mustajaabu dacwa noqday ilaahay baryo ilaahay baryada ka aqbal ee boqorka nimankii ag fadhiyay mid ka mid indhabeelay dabeetana uu yimi oo yidhi waxaan maqlay inaad indhaha dadka u bixiso waxaasoo dahaba qaado indhaha ii bixi wuxuu ku yidhi anigu cidna indhaha uma bixiya ilaahay rumee subxaana wa tacaala haddaad ilaahay rumaysaana ilaahay baan kuu baryaya ilaahay inuu indhaha kuu bixiyo ninkii ilaahay buu rumeeyey subxaana wa tacaala dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala indhuhu u bixiyey boqorkii buu ku noqday boqorkii wuxuu ku yidhi war indha ayaa kuu bixiyey boqorku wuxuu sugayaa nimanka madaxda ahi waxay jecel yihiin wax walba in iyaga loo celiyo you are the one who done that in la yidhaahdo adaa wax walba qabtay adaa sidan yeelay adaa caynkan yeelay taladaadaa lagu guuray ra'yigaagaa fiicnaaday waxaase ammaantaasi iska jecel yihiin boqorkii markuu soo ag fadhiistay ee uu ku yidhi yaa indhaa kuu bixiyey wuxuu sugayay inuu yidhahdo adaa ii bixiyey deetana wuxuu yidhi rabbigay baa ii bixiyey awalaka rabbun hayr ba ku rab kale miyaad leedaan aniga ahayn wuxuu ku jawaabay rabbi wa rabbuka allah aniga iyo adigaba allah inoo wada rabbiya dabeetana ninkii baa la toorjargareeyey la cadaabay wuxuu sheegay inankii baa la toorjargareeyey wuxuu sheegay wadaadkii saddexdiiba waa lasoo qabtay ma ka noqonaysaan may wadaadkii baa la dilay uu ka noqon waayay noloshuu siistay hadafku lahaa ninkii kalaa la soo qabtay war ma ka noqonaysaa may buu yidhi waa la dilay noloshuu siistay hadafku lahaa inankii baa soo hadhay inankii ciidan baa lagu daray buur baa la yidhi geeya
كتورة بورتي مركي لجيي إلهي بو بريء إله كون شركو ضيق قفل لو بيري بورتي بقلقلتي فقد عض إساقي وصار نوضع عافي ما تغبى والله قبته هدنا قولك كلا لغو دري بدأ لجيي إله كون شركو ضيق كافي بيري دونتي بقلقلتي إياقي بقد عطي إساقي وصار نوضي بقر كيبو يما هو حكولي بقر بربتين ديشو هاوية واحد سمايسا جعب باش واحد دبتنا دد كوردن isugu yeedh halka igu xidh dadka hortooda dadka oo dhan markaad isugu yeedho waxaad tidhaahdaa bismillaahi rabbil ghulaam de magaca Allah cuskaday iyo rabbiga ghulaamka kan marka wad dili karaysaa kursiga haday timaado shalay muxuu dadka ku leeynay awlaka rabbun ghayri imkana muxuu ogol yahay bismillaahi rabbil ghulaam hadana ogol yahay wa kursigu marka ninka fadhiistaa hadii xaga gaalnimada loo wadana daanu ilaahay rumaysnayn waa siisanaya hadii xaga kale loo wadana waa siisanaya markii hore rabbi aan aniga ahayn ma jiro buu dadka ku leeynay dadkii markii la soo yeeray meeshii la taagay buu bismillaahi rabbil ghulaam oo ku gana halkuu kaga dhacdo oo dhintay kii yara magaaladii dhamayd way aragtay inankii yara in si kale lagu dili kari waayo in bisinka loo qabto mooyaane aamanna bi rabbil ghulaam bay dhahdeen marka magaaladiina ghulaam kan rabbigi ayaanu anana rumaynay ninkii madaxda ahaa ku soo koogtay marka awal wuxuu islaam kan yar bisinka isku dhaafiye bisinkii dadka la qabsaday dabeetana wuxuu amray magaalada dhammaanteed wadooyinka in godod laga qodo dab lagu shido dadka oo dhan la soo xaadiriyo qofkii hal la weydiiyo qof walba ma ka noqonaysaa may hadduu yidhaahdo dabka hal gubo sidaa ku wada dhintaan magaaladii dhamayd waxay dooratay inay marato laakiin aanay tawxiidkeeda ka noqonin waa lagu guray nabigu ilaahay baa kii ya ummash fa innaki ala alhaq buu yiri kii yaraba dhawaaqo wuxuu yiri hooyoy sabir xaq baad ku taagan tahay islaantina way aqbasho dabkii bay gashay wiilkani wuxuu tilmaamay sidii loo dili lahaa dantu ka lahaana waxay ahayd inay dacwadaasi gaadho dadka kan oo dadku ilaahay rumeeyaan wuu gaadhay inay dadkii ilaahay rumeeyeen laakiin noloshiisii buu siistay magaaladan dhami noloshoodii bay tawxiid siisteen wadaadkii raahibkii bilaabay noloshiisii tawxiidkan siistay ninkii boqorka u shaqeynayay noloshiisii tawxiidkan siistay dadkan oo dhami waxa ay ka siman yihiin rabbi inoo tilmaamay iyo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan hadaf qaaliya maadaama ay raadinayaan oo ah inay cadaabka aakhire ka badbaadaan ogolaadeen cadaab adduun inay galaan adduunka waa la gubay cadaab adduun bay aqbaleen inay galaan waayo waxay u arkayeen hadafka weyn inay badbaadaan oo ah maxay cadaabka aakhire inay ka badbaadaan ilaahina subxaanahu waa lagu waariyey ka qur-aankaana waa lagu waariyey qur-aankan inuu akhrina ka warraba والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود كون إلهي كجور رمى يللي وحلل نعدل ولا فوقي قدتك كوي صاحبك ها ضبك كوي صاحبك هبل لي وكان دتك جبي وكون لجبي وي قال هذا هدف كوين قفكو حقوق بحيان نفي النفيس با wax kasto qaaliya uu haysto sidoo uu gaaro hadafkiisaasi sida awgeed buu gabiya carbeed wuxuu lahaa la tahsabanna almajda tamran anta akiluhu lan tablugha almajda hatta tal'aqa as-sabra xulayay ha umalaynin
magaca maamuuska iyo sharaftu timir la cunaya inay tahay buu leeyahay gaadhi maysid magaca iyo maamuustoona haddaanad qadhaadhka dhadhamin buu leeyahay yacni waxa kaa xiga maxay juhdi inaad bixiso iyo wax weyn waa ka ku kala leh lowla almashaqatu saada annaasu kulluhum haddaan mashkiladu jirin dadkuba wada madax bay ahaan lahaayeen buu leeyahay laakiin aljuudu yafqiru waliqdaamu qitaalu sakhinimada buu lahaa faqraa laga qaadaa laakiin inaad sakhin noqoto waa inaad dee faqriyowda wax bixisid waxaan uga jeednaa ibnulqayim raxmatullaahi calayhi baa wuxuu leeyahay nicmad ma gaadho wa ana man aahara araaxa faatathu raaxa ninka jiif iyo raaxaysi door bida raaxaysiga dhabtaa dhaafa yacni waxa weeyaan hadafku hadduu koreeyo wuxuu u baahan yahay wax qaaliya oo lagu bixiyo imaamu axmed ibnu xambal raxmatullaahi calayhi baa la yidhi mata raaxa imaamu axmed ow raaxadu waa goorma cinda awalu qadamin fi ljanna buu yidhi adinka koowaad markaad jannada dhigto markaasaa raaxadu bilaabantaa buu leeyahy inta ka horaysa waa maxay dadaal iyo tacab iyo hawl iyo xoogsi baa loo baahan yahay buu leeyahy waayo waxaad raadinaysaa waa janno carduha asamaawaatu waalardi baad raadacaynaysaa idan waa inaad ka mid noqotaa maxay uciddat lilmuttaqiin baa la yidhi ahlu taqwa waa inaad ka noqotaa waxaan leenahay markaa hadafka qofka mu'minka ee dhabta ahi waa inuu ilaahay raali geliyo waa inuu janno helo waa inuu naar ka badbaado saddexdani meel bay isugu yimaadaan haddaad tidhahda waa inuu naar ka badbaadaa macnaheedu waxa weeyaan waa inuu janno galo haddaad tidhahda waa inuu janno galo waa inuu naar ka badbaado weeyaan ilaahay raalli ahaanshihiisuna dee labadanba waxaa midna kaa badbaadiya midna ku gel waa in rabbi raalli kaay waa macno meel isugu yimaada waa inuu naar ka badbaadaabaa ka mid ah naar haddaad rabto inaad ka badbaado waa inaad ka takhallustaa negativeska naftu ay wadato salbiyaad tiro badan baa jiro naftu ay iska jeceshay waa inaad ka baxdaa uskaga nolosha ay wadato oo dhan waa inaad ka kor martaa doonitaanada fudud ee naftu ay iska jecjeceshahay waayo naarta ilaahay wuxuu yihi wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya mid idinka midi ma jiro ilaa iyo naarta wuu u aroorayaa mooyaan horta naarta waynu wada gelaynaa waayo jidka siraad baa ku dul yaalla siraadna tacaala ثuma nunaji aladiina taqow wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya markii la yidhi wain minkum ilaa waariduha mid idinka midi ma jiro ilaa iyo waa loo soo aroorinayaa naarta oo jidka siraad buu maraya ilaahay wuxuu yidhi ثuma nunaji aladiina aamanuu intaa kadib baa waxaanu badbaadinaynaa kuwa iimaanka laga helay iyo taqwada ثuma nunaji aladiina taqow kuwa alla ka cabsiga laga helay wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya kuwa dhaalimiinta ee gaaloobay ee dulmiga sameeyeyna waa lagaga dhex tegaya idan hadafkaasee lagu gaadhaa ilahay baa qur-aan ku tilmaamaya ilahay wuxuu ina leeya ya ayuha aladiina aamanuu hal adullukum cala tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim ya ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka laga helayo baa ilahay leey subxaana wa tacaala hal adullukum cala tijaaradu waa bayc waa wax kala gadasho ma idin tusiyaa tijaaro idinka badbaadinaysa cadaabka kulul baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala dabcan muuminiintu haabay leeyihin ilahay wuxuu ugu jawaabaya subxaana wa tacaala hayru lmu'min ma rabo tijaaradatan laakiin mu'minka dhabtaa waa hadafkiisii ilahay wuxuu yidhi tu'minuuna biاllahi warasuulihi watujaahiduuna fi sabiili اllahi biamwaalikum waanfusikum dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun haddaad rabtaan inaad naar ka badbaadaan tijaarada u baahantihin waxa weeyaan inaad rabbigiin rumaysaan oo rasuulka muxamed calayhi salaatu wasalaam rumaysaan oo ilaahay jidkiisa u dirirtaan la timaadaan yakfir lakum dunuubakum
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. تجارة هداغ بشانه نف يمال بين ديبسته. إن الله اشترى من المؤمنين إلهي وحلي مؤمنين الرب وحبوك قطي قط الشوية وحلقا قطي نف يمال كاغبا وحاتكو قطي هدف كاغي كما دميستاها وهنا الجنة هشو عدمنا كبحستي إلهي مركا وحلي سبحانه وتعالى إلهي دنبقي نضافيا جنة ويدين قليل أي هدف كاس ضاد حقيقي سو نتيجة ذات هلسة وحويا وحي دنبك ضاد طيب شرباتو كف كف لقا مواينه وحي كف كف أها ربي واكا ضافيا وحكالو اللي يدي واحد هلسة جنوين هوستي دا يدريريسو بيرو وبيالي دريريان وبيادا قرآن كورميو ووبيال عانا كوا ملبا كوا خمراء وحيل الدونابا وبي دريرية قرقا ماها قصبات لفرية ووبيكو هوس مربا عانا قصبات كما فريسي تلاقدنا لقلب بحيه وبي اسكرنا ما درساني سهدادو باهنتي ملب كوا وبي سيدي سيو دريرية وحوال بوا وبي بالوري ريفارس ايا هوس مرية قرقا هوستيس انسانكو هادي يقور meelaha raaxada u yaqaana waxa weeyaan dhismayaal biyo hoos maraan xagga ka maraan biyuhu waa waxa ugu badan ee wax lagu qorxiyo ilaahay wuxuu inoo tilmaamay inay wabiyadaasi dareerayaan mar labaad ba haddana jannadii la sheego waxa la yidhi waa masaakiina tayibatan fi jannati cadn iyo guryo fiican oo ku yaala baa la yidhi jannooyinka nagaadiga kadib baa ilaahay wuxuu ku gabagabeeyey dhalika alfawzu alcadiim warkaas baa rabbi leeyahay waa guusha weyn ninka hadafka mu'minka ee hadafkiisa xaqiijiya waa ninka guusha weyn guulaysta guusha weynina waa tan rabbi tilmaamay dhalik ismu ishaara lilbaciid lagu tilmaamaa laynagu tilmaamay korayntay shaygani korayso ee sarrayso dhalik alfawzu alcadiim baa ilaha yidhi waa liibaanta weyn ama guusha weyni waa tan إلهي سبحانه وتعالى هذا لأن قفك مؤمن كي يسقو هدف كي سوكاية هي أهداف يرو كسو كي يأجره القرآن قوة المامية إلهي مركا كم حلي هدف كي من سوية هي أيها وحليدي وحكالو ليدين أخرى تحبونها متكالي ويدنكو تعيشين با إلهي يري أوام حي نصر من الله بني آدم كو حسك جعليه إنو قوليستو قال يا مسلم إن قوشو يدن رعضو هذا ما تنا جنة ولا هليا مشكلة معها وهي وحين كغفلا سورة البروج كان هدا كسو الرمي يدول كي هدف كوضة هلي ولا قبيسو ما هين هدنا إلهي وحولي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار حلو قبي ذلك الفوز الكبير هي كوي لقبي iyagana waxa la yiri fawz kuwii dagmeeyna waxa la yiri fawz kabiir bay heleen ay kuma xidhna adduunka inaad nasr heshay inaad nasr helin inaad adduunka dagaal gasho laga guuleystay inaad guuleysato kuma xidhna wuxuu ku xidhay inaad hadafkaaga murtabit ku tahay wax kasto nolosha ka soo maraya adigoo markaasi miskiinana waad gali kartaa adigoo guuleystay oo xoog badanna waad gali kartaa ولذلك بقى إلهي سبحانه وتعالى وحكى له وحكت المامة وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب متكلوا أتعشين وأين أقول حق لك تمه هشان إيا فرشو للعصوبة مسلم ككو صابرين هشان وبشر المؤمنين بقى إلهي ردتك المؤمنين تاو بشاري التجاري قال لي رسمي تجاري سته وحكى له هدباء أهدافته نلشات كقبطها وإن أنا خلافين هدف كوين سلادة كلاوات أنا الصعدة وحوي هدف كوين وحين إنه رضا الله
والفوز بالجنة والنجاة من النار وهدفك قفك مؤمنك وهدفك أن للربه نفئي نفيس بقى وحكستو قال ياض هاي علمي وحلو نرشا قصة بسريني هدفك كما الضنبيسك أو أديقيا تجارة way banaantay socanka maaha inaad qofku iska baac mushtareeyo ilaahay wuxuu quraankeena leeyahay فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله صلاة هذين ما تباليني نلك كفا فور هتسد إلهي محي فضلك أسر التجارة وبنات لكن هذا نوح الله ينوت المامي رجال لا تلهم عن الصلاة وإيتاء الزكاة وحلت المامي كوا أمانا نسينا يهين رق أنا كمشغولين إن تجارو يبيع أنا ضافرين إن إلهي ذكر جيسة صلاة وقستيدة زكاة اللايمات كده وايو يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ويدولك كان وادول كعب صنية مال قلبي هذا يقد قدومان ما أنت قيامات دول كان بقى كهيا أعمك للدنيا وين وحبر شد وين نقطة وحبر هدفك وحكترته لكن وحبر كهري مع الضمايا هدات شقين يسو شقاد وين نقطة شقة هدف كاسي قوة لكن وين أنا نقول الشقة كهري ما نسا كور هدات رد شقة صلاة دي ما اللي محن صلاة كي لا بل سويدينية دم محن صلاة كي لا باركها مسمحن شقة كي لا بيهي يعني وحوها هدف كربطها هي صلاة ضمبوها هي عبادة الجنة لقو صعده وحين سؤال شو ترى هذا شغلة محل جاي ليه لكن دتك سؤال شيء كويديني وحويان وقت كي شغلة صلاة وسوق لسه شخص صلاة محل خي الله ده مين الشغلة مهم كيه صلاة محي سكندري ليفل وشوك تمركها برايمري واعتبار كسيني ومحي وشقدي هدفك وشقو عكس جاي هي عكس جاي هذا وحي shaqadu haday salaada ka hor timaado iyada fudud ha iska tagto salaada muhiimsan way salaada naar baa laga badbaadaa salaada janna lagu helaa salaada rabba raalahanshiisa lagu gaadha hadaad ka tala waayimaysid intii lagu qoray hunguri ahayd iyada lama waayiyaa la yiraahdo ama xalaal ku raadi ama xaraan ku raadi badan mayso idan waxaan leenahay acmaasha kale shariicada ku banaan قور بابنان عرور لا دلا بنان حولين لا دغدا بنان لكن بشرط قري كو بنايين شرطغاسي وا maxay hadafkaaga way weynaanay ku seejinin weynaanay ka hor imanin hadafkii aad u noolayd ee noloshaadu nolosha waxaad u joogtay inaad ilaahay u caabudo inaad ilaahay raali geliso qofka marka hadafka u nool ee hamigiisa xambaarsan ee raba inuu xaqiijiyo حتى هدو أعماشك وحقيقين كريوايو نيدي سا إلهي كو أبال مرينيا لكن وينو رب الدعال عضا إني نيدو نبطهي إني نيدو نبطهي وين رب الدعال عضا إلهي وكوغي إنا نبطهي إنا ديس يليليس هدي نيدو نبطهي إلهي وحب الله قاضي حتى مينسكي الدنيا هداد أدقو ويدو بمجرد نية صادقة هدو هدف كاسكول السعودي إلهي كسيني هدفه كو حقيقي ولذلك النبي عليه عليه الصلاة والسلام حديث صحيح مسلم كياله من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه النبي عليه الصلاة والسلام قفك إلهي ويديست الشهادة تيسين ورنته في سبيل الله قفك ربي ويديستين ورنته لكن بالصدق ويدي سنية رب أهان ويدي سنية رب كطهي إلهي بوسك كو سينية حتى هدو فرشكي سسكا قد انتبه لير هدان مولي جيبا ميلا جي هذا يارجا وقولي سسكا شوغي أو فراشكا كود انتو وقاري يا بلير ماشا ويا هدف كيسو قفكني مصمم كوها أمين اسكي أكتي سيالون بأوف أقلان واي نبقى عليه الصلاة والسلام حتى المامية إن بالمدينة أقواما كان بخارى وري تبوك مركي لو سعودي تبوك ودقال كلول بوها
waayo waqti kulul ayuu ku beegmay waqtigan xagaaga ee khaliijka hanfigu ka dhacee kontonkada ay gaadho ayaa meel bil loo lugaynayo la qabanayay adu waxaad qiyaastaa khaliijka oo 50aadkii ku jira 50 degree centigrade ay marayso oo bil la lugaynayo haddana waa meeshii munaafiqiinta iyo dadkii liitay ay yidhaahdeen laa tanfiru maxay fi lxar kulaylka hawsa qul naaru jahannama ashaddu xarran waa kuwa ilaahay ku lahaa waro jahannama ka kulul baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala haddaad intan kulaylkaa iska soo nabayso tanaad isku nabaysaa ka kulayl badan baa la yidhi waa jahannamo xaggeedii ayaad isu nabaysaa safarka caynkaasi rag baa nebiga raacin calayhi salaatu wasalaam oo madiina joogay dabeetana hadlayo madiina waxa joogay qoom ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum duul aydan dooxa ka tallaabin ama aydan meel soconin ilaa iyo weydin la socdeen tumaha nidaam Soomaaliga ahaa oo soo duulayo xaqu idin ma aha duulina magaalamaya diina weydin la socotay ajarahaana weydin kula socdeen oo waa sidee nabiga waxay ku yiraahdeen wahum bil madina su'aash bay ku celiyeen ma iyagoo madiina jooga haddana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri wahum bil madina حبسهم العذر روايات كقاركودنا حبسهم المرض عذر دار باربه وابكين وهنتي واينay ku baxaan waa tamar laakiin waxa ka goonayd inay ilaahay rasuul marka kuwan soo raacay buu nabigu leeyahay uu gaadhaya hadduu ficiliyan gacanta ka gaari waayo ilaahay wuxuu ballan qaaday niyada saadiqa inuu ku gaarsiinayo qalbiga ilaahay daalacda qalbigu daalacda macnaheedu ma aha lama amal sameeynaye qalbiga la daalacaya waa qalbi maxay u ooyaya nabiga qaaru yimaadeen waxa ilaahay ilaahay rasuulkiisiyo naqaad ma haysano waxaanu raacno wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam waxa idinku qaado ma hayo dabeetana ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay laabteen iyagoo maxay iyagoo ooyay xufuulana ma haysto ka dhabayhayd inuu baxo idan waa qalbi saadiqa nabi maxamed wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam weylay idan qofka mu'minka ah hadafkaasuu nolosha ku leeyahay u fiirso bay'at al-aqaba nabigu calayhi salaatu wasalaam maka intuu soo baxay carbeed soo gaadhay inta badan arkaanul islaamku diimi horena waa ku jireen laakiin way inxiraafiyeen way qalqaldeen oo waxaan ahayn wixii sax ahayd yada tawxiidkii baabay qaldeen la shariikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka iyo waxaasi ku kordhiyeen ilaa uu kaliba tahay ilaah yaro adigu aad leedahay isagoo waxba haysan mooyaane bay ku dareen ilaah yar xagu ka jira gaaladu meesha ay marayeen mawsimka xajka markay soo yimaadeen buu nabi maxamed u tagi jiray calayhi salaatu wasalaam qabaa'ilkii reeruhu u bandhigi jiray wuxuu weydiin jiray man ya'wini wa yansuruni xataa uballiga risalaat rabbi waryaa ii hoynayo ii gargaaraya si aan u gaadhsiiyo ilaahay risaaladiisa dadka ilaahay baa iskale buu ku yidhi ansaar ayaa islaamtay oo dhowr nin markii hore ka yimaadeen 6 nin meelahaasi dib u noqdeen islaamnimadii faafiyeen nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabi uu diray saxaabigaasi diintii uu ku faafiyey dabeetna ansaari waxay dhahan waryaadheen ma madiinuun baynu joogaynaa ilaahay rasuulkiisiina buuraha maka la eriyaya war sidaan raganimo maahe annabigi baadi doona baa lagu heshiiyey 7 nin baa la soo diray waa soo xaj tageen waa yimaadeen 7kii nin nabigay al-aqaba meel la yiraahdo ayay kula ballameen
meel yaroo kuryara dee ilaa carab oo dhan baa meesha joogto waa laga dhuumanayaa nebi maxamedna qaaraaba daba socoto qaylinayso le waa beenaale ha dhegaysaninoo warkaasaa la akrinaya waa keligii waxay yidhaahdeen halkaasaa inoo ballama laba nin iyo saddex nin baa loo dusayo halkiibaa shir la isugu yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam baa loo yimi waxaa la yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxaanu rabnaa inaynu heshiis kula gallo maxaad nagula heshiinaysa wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam tubaayicuni cala alsamci waalطaaca fi alnashaati waalkasal waalnafaqati fi alcusri waalyusr وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يقولها لا يبالي في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة نبي عليه الصلاة والسلام هشيس يقول قال وحب الله يقول قشان inay maqlaysaan oo ay adeecaysaan marka la firfircoon yahay iyo marka la daadi inaa wax bixinaysaan marka wax la haysto badhaadhaha la joogo iyo markay noloshu cidhiidhiga tahayba qofka muslimkii markasta waxbuu bixiyaa wuxuu bixinayuun baa kala badan markuu wax yaraystiyo wax weyn laakiin markasta waxbuu bixiyaa inaa mar walba wax bixinaysaan inaa samaha dadka faraysaan xumahana ka reebaysaan ilaahay dartii mid wax canaanta inaydan uga kaasi iyaguu nabigu ku yidhi inaa ii gargaaraysaan inaa ii hiilinaysaan oo iga celinaysaan waxaa naftiinna iyo haweenkiinna iyo caruurtiinna sida u difaacdaan si la mida inaa ii difaacaysaan waxay idhahdeen maxaanu leenahay walakum aljanna buu nabigu yidhi waxaynu wax ku kala gadanaynaa waa kaa ilaahay diintiisa inaa u gargaartaan idinkuna waxaa abaalmarkeeda leedahin maxay janno waxay is idhaahdeen baycada heshiiska nebiga la galo ninkii ugu yaraa ascad ibnu zuraara la yidhahda yidhi waar sugaan saaray war waxaa laydin yidhi ma maqlaysaan war nebi maxamed haddaa qaadataan carab oo dhami dhan ba idinka wada mari dagaal baa laydinku wada qaadi noloshu way adkaan doontaa waa qadhaadhaan doontaa waar iminkaa cudurdaar helaysaan ha isku qaadina ballan ama rag noqdoo idinkoo og badheedha oo badheedhihiina caddaystoo dhaha dadoo dunidoo dhamme hadday isu tagto waa ka hortegaynaa badheedhaha iminka caddaysta haddii kale buu yidhi arrinka kani ma fudude eh ogsoonaada war naga dug gacantaadaa la yidhi saasaanu nebi maxamed kula gelaynaa calayhi salaatu wasalaam heshiiskii baycadii nebi maxamed ay kula galeen waxay kula galeen noloshoodoo dhan baaba madax maya naf iyo nafisba iyagoo waayo dantay lahaayeen ma ahayn inay madax noqdaan dantay lahaayeen ma ahayn inay xoolo helaan xunayn baa la yimo xoolihiina waxaa la siiyey kuwa imika soo islaama iyo qaar hadda gabayaayoo meesha jooga iyo waxaasuu nebigu boqol halaad siiyey iyo qaar laba buurood dhexdooda xoolihii joogu yidhi dareersada markaasaa ansaartii qaar ka mid yidhaahdeen nebigu dee reerahoodunbuu xoolaa ka buxiyey isugu ka yeedha buu yidhi ansaar oo dhan meel baa la isugu wada yeedhay dabeetana maxaa ka rabta yidhi ansaare anu saari martaan mari lahaa dadku hadday xoolaa qaataan idinaa nebi maxamed qaadataan ka warrama buu yidhi radiina bay yidhahdeen raalli baanu ku nahay xooloo dhami xagga ha qabtaan haddaad nala noqonayso oo nebi maxamed annagana raacayo qismadaasaa noogollay bay leeyihin yacni waxa weeyaan hadafkooda waxay haysteen noloshoodii o dhan waxay aqbaleen markaa inay naf iyo maal iyo caruur waxay ka celiyaan nebi maxamed inay ka difaacaan waxay aqbaleen inay marka la badhaadhaysay iyo marka dhibi jirtaba inay wax nafaqeeyaan oo wax la baxaan waxay aqbaleen si kastoo noloshu tahay inay nebiga ateecaan calayhi salaatu wasalaam idan waxaan leenahay hadafka qofka muslimkii uu nooliyo waa inuu cad yahay waa inuu noqdaa ilaahay inuu raalli geliyo janno inuu helo naar inuu ka badbaado hadafkaasi
waa inuu noqdaa noloshaada oo dhan ee kale hadday keensaad ku gadato haddii muqaabilu kaloo dhame wax qiimo le ma leh waxaynu nidhi markaa ahdaafta yaryare ka sokaysa ee marxaliga ah waa inay noqdaan hadafkaa weyn un wax u wada adeegaya hadday waxaad baranaysatay diin baad baranaysaa danta koowaad aad ka leedahay waxa weeyaan inaad adigu badbaado maaha inaad dadka sheekh u noqoto danta koowaad aad ka leedahay diinta barashadeedu waxa weeyaan sidii aad naar uga badbaadi lahayd jannana u geli lahayd ayuu qofku diinka u bartaa marka labaad buu wuxuu tijaabiyaa inuu ilaahay dadka ugu yeedho dadka inta hadhayna inuu rabbigood ku xidho oo ilaahay addoommo u noqdaan inuu baro waxaan leenahay guryaha la dhisto shaqada laga shaqeeyo carruurta la tarbiyeeyo waxaasoo dhami waa inay noqdaan ariiqa qura ee ah ilaahay cibaadadiisa waxaynoo horseedaya hadafkaasi noloshoo dhami waa inay isaga ka shaqaysaa hadafkaa markaad xaqiijisana ammaanta kama dambaysta bini aadamku kamaalkiisu waa alcubuudiya lilah bini aadamku kamaalkiisu waa halkaa markuu dhammaystirmaa waa markuu xaqiijiyo wixii loo abuuray waxaa lagu abuuray waxay tahay inaad ilahay caabudo wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun wixii shaqadii lagu abuuray marka aad qabato markaasaad kamaalkii gaadha wax kasta koobkan waxaa loo samaystay in wax lagu shubto marka lagu shaqaystay wax lagu shubto koobkani shaqadii loogu gutay waa ammaanan yahay marka insaanka waxaa loo abuuray inuu ilaahay caabudo walidalik baa qur-aanku markuu addoomaha ilaahay ka waramayo ambiyada waxaa lagu sifaynayaa wixii ay risaalo sideen oo dham inay masalada ahayd yaa qawmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru nebi weliba wuxuu la socday tolkayow ilaahay caabuda oo ariiqaa mara oo raalli ahaanshiyaa ilaahay raadiya ma lihidin ilaahay hayrkii waxaa caabudaane ilaahayna qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamay mas'aladaa inaan laga santaagi karin bal ee saalixiintu lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilah baa ilaahay yidhi ciise almasiix nebi ciise kama santaagaya baa ilaahay yidhi inuu noqdo cabdan lilah ilaah weeyaan iyo inan iyo waxaa tuura baa ilaahay leeyahy lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilah wala qarabu malaa'igta santaaga istankifa ciddii kibirta ee santaagta baa la yidhi kibirda waa ilaahay cibaadadiisa inaad diiddo ayuu ku dhan yihi miskiin baa ninkaa hebel waa iska miskiin maa hadduu salaada tukan waayo waa nin kibray ninkii ilaahay diiday inuu fooda dhulka u dhiga waa nin kibray kibirintaasu ku dhan yihi ilaahayna wuxuu leeyahay waman yastankif can cibaadatihi wayastakbir baa ilahay cibaadadiisa iska weyneeya ilaahay baa aakhiro soo xaadirin baa la yidhi iyagoo darro quraanyo laaleeg baa la yidhi kuwii kibri jiray oo khalqiga ilaahay ku tumanaya aakhiro la keenaa qur-aankana ilaahay subxaana wa tacaala markuu nebiyada ammaanayo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam marka ilaahay ammaanayo tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdih liyakuuna lilcaalamiina nadiira ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waxaa weyn oo wax barakeeya aladii nazla alfurqaana calaa cabdih alxamdu lilahi aladii anzla calaa cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwaja subxaana aladii asraa bicabdihi leyla waanahu lama qaama cabdullahi yadcuuhu ilaahay subxaana wa tacaala meeluhu nebiga ku ammaanayo o dhan addoonnibuu ku sifeeyey habeenkii la dheelmiyey ee laga soo kaxeeyey maka ee bayt almaqdis la keenay cirka la qabadsiiyey subxaana aladii asraa bicabdihi baa ilahay yidhi idan ikhwatii fi lcaqiida meesha kama dambaysta qofka mu'minka gaadhaana waan tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraah fainahu yaraak waxaan kusoo koobayaa markaasi walaalayaal meelahan aynu joogno dad badan oo buusaladii ka luntaa jira buusaladu waa kambaskii tilmaamtii ka luntay meel uu socda aan garanayn
qofkii cibaadada rabbi seegaa meeluu socdo ma garanayo waa qof lumay noloshuna hadday rabbigeed garan weydo waxba maaha weligeed ba hala dhaldhalaaliyo ka waran haddii markab inta halkaa la soo taago waxa la cuno dhan lagu guro la qurxiyo wax walba laga dhigo dad la saaro kadibna la yidhaha meeluu qabanayaba cidi garan mayso ma raaci lahay meel allaaliya meel ugu socdaa ma jira haddii lagu idhaha waa biduuni hadaf noloshu waa cayngeed seegto weligaaba dhaldhalaaliyo qurxiyo caynkan biduuni hadaf baad noosha waad iska joogtaa uun kuluu watamatacuu qaliilan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamay markay wax kala garan weydeen noloshii oo dhan cunno iyo cabis baa lagu soo koobay noloshii oo dhan dumar la fulay in wax la cuno ayaa lagu soo koobay waayo waa nolol hadaf beeshay cunnadu markay hadaf noqotay dabeetana waxay soo baxday uun wuu dheregsayay muxuu sameeyaa waqtiga cunnadana way gaadhay waxaa la siinayaa appetizers wax hore oo shahiyada fura haddaad dheregsantay maxaad shahiyadaada ka furanaysa madka badaysid may shahiyadaa lagu furaya shahiyada markaad furatana waxaa lagu siinayaa main foodka markaad cunto waxa lagu leeya waad dibiraysa waxaa lagu siinayaa kuwa caloosha jilciya raashinka kala dejiya kuwana ka daba cabaa lagu leeya kaa dejinaya maxaad iska dabirinaysa haddaad dana dejinayso maad marka horeba in yar oo aan meesha buuxin saartid hadhow baa laleeyahay haddana waad buuratay waxaad u baahantahay jiimkii iyo haddana isfudaydintii ومحد بررت مركو رئيس كي جديسي هداد هدو هذا رئيس كرغيسو ويحوق يعني هو قفكم مركو هدف باله قالكم النبي عليه الصلاة والسلام كتل مامي ما حديث أنا يشيغيسو قوم بانا يا وحعنين هنا قاعد شودان موياني قا عنان نمحي هندر جنبال يدي واي عنضا إن أدوح عنت الله ومن نولاده محا وحلا عنا هنا تكون نولاته haddaad u noosho inaad wuxuun cunto ka war hadafkaagu iyo wax cun cunnadu waa wax loo cuno si aad u noolaato existencekaagu si uu jiro laakiin haddaad u cunto u noolaato si aad wax u cuntid maanta maxaynu cunnaa berri maxaynu cunnaa saadamba maxaynu cunnaa haddii noloshuba tahay waa nolol hadafu ka lumay marka waxaan ku soo koobayaa hadafku yuu idinka lumin hadafkaad dunidan u joogtaan waa imtixaamantiina waa ilaahay cibaadadii shayga aad raadcaynaysaana waa inaad rabbigii ku uuntay aad raalli geliso inaad rabbigii ku uuntay raalli gelisana waxaad ku helaysaa inaad janno gasho cadaabna ka baxsato hadafkaasi se hadduu kaa lumo neef xoolaa baatay in hum ilaa kalancaami bal hum adallu sabiila baa ilaha yidhi waa xooloo kale waanay ka liitaan jidkaas ilaahay subxaana wa tacaala ina raaciyo inuu inaga dhigo kitaabkiisa kuwii ku sugma aakhirana kuwa cadaabkiisa ka badbaadiyo jannadiisana geliyo sala allahuma cala nabiyi muxamed wcala alihi wasaxbihi wasalam alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin